السلام عليكم ورحمة الله. وعبد الرشيد علي الشيخ محمد ويه سان هوري idin kugu ballan qaadayba maanta waxaan ka hadli doonaa gaalkii adduunka ugu hanti badnaa xilligii Nabi Muuse calayhi salaam. gaalkaas oo haddana ilaahayna diiday Nabi Muuse inuu raacana diiday oo rabbigiis uu ku xiriiriyo, haddana maalkii ilaahay ugu talagalay oo ilaahay u siiyana oo loox maxfuudka ilaahay ugu qoray markiisii horeba wuxuu yiri aniga xoogayga iyo caqligayga iyo cilmigan ku shaqaystay oo ilaahay siiyay mana rumayn ugamana mahad celin oo alxamdulillah ma oran ilaahu maalka ay siisay. ugu dambeyntii Nabi Muuse caayo wuxuu yiri ninkan Nabi Muuse oo rasuulka iyo nabiga noo sheeganaya meel yuhuud oo dhan ku kulansan tahay oo Nabi Muuse uu dadka zinada ka waaninayay ayuu wuxuu yiri laftigiisaan baaba saani ahba oo gabar halkan joogta ayaa waxay leedahay Nabi Muuse iga sinaystay. halkaas marka ilaahay ku qabtay ninkii la oran jiray Qaaruun, halkaas ugu dambeysay ilaahay waa ka arsaday markuu eragaas yiri. haddana maanta maxaan u fadhinaa qolo Soomaaliya oo inta diintii ka baxay rabbi caayo rasuulkii caayaya oo xaasaskii iyo guriga rasuulka caayo oo quraankii caayo oo diinta islaamka caayo oo saxaabadii caayo xaaskii nabiga caayaan u fadhinaa oo ka hadlaynaa. marka waxaan ogaanaynaa Qaaruun sida ilaahay uga aarsaday markuu Nabi Muuse sina ku sheegay. sidaas iyo ka xun baa marka loo galaya kuwa nabiga hadda aflagaadeeyo oo sariirtiisa iyo xaaskiisa ka hadlaya oo nabiga caayaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وآله وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إلى كشرة كان ينكي قارون لأورنجري. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. نبي موسى قوم كيسيبو كمدها وانا كبري كركوض وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مال كان سيني فرياشي سكليه مالك ماها هنتيديسة فرياش كليه أيا كل حق وين oo kuwa masaaracada ciyaaro kale weynanka badan oo kala koox ah ayaa furayaasha kaliya inay qaadaan bay dib ku ahayd intay culays ka qaban furayaashaas. Qaaruun waxa uu heliyay laba nin oo kale, Fircoon iyo Haamaan. saddexdaas isku meel bay ahaayeen waxaana qoomkaas oo dhan xilligoodii loo diray Nabi Muuse. markii Nabi Muuse oo rasuul ah nabina ah waa meel waa kaligiis. قارون يا فرعون يا هامان وامل. قال تعالى آياتك إلهي وحو كله: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بآياتنا فاستكبروا وما كانوا سابقين فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بآياتنا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين قارون ninka la dhaho iyo fircoon iyo haamaan waxa u yimid nabi muuse oo aayad cadcad ula yimid sagaalkii aayad kadib maxay sameeyeen fastakbaruu fil ardi dhulkii bay ku kibreen wama kaanuu saabiqiin nagamana orod badin oo markaan halaagay nima naga adkaaday maaha oo naga cagabadiyo naga dhunto naga cararay maaha baa eeba yiri nabi muuse saddexdaas waa isku meel nabi muusena waa meel nabi muuse marka waxaan ku daraynaa laba kale nabi sulaymaan iyo waxaan ku daraynaa gabadhii balqiisa ahayd oo iyadoo gaal ahayd inta nabi sulaymaan u cudiray u timid oo markaa soo muslintay labadaasa nabi muuse ku daba daraynaa si loo noqdo 3 iyo 3 marka waxaa halgamahaya oo looltamahaya nabi muuse iyo nabi sulaymaan iyo balqiisa oo soo muslinto gabar muslimada ah oo nabi sulaymaan la joogta oo boqoradna ahayd gaalna ahayd gaalnimadeedii iyo boqornimadeediiba wixiiba inta faraha kala baxday nabi muuse raacday saddexdaas dhan baan ka dhigaynaa lixdaasaan marka iska hor keenaynaa marka qoladii laga adkaado iyo qoladii guulaysata ayaan arkaynaa marka iyo qoladii ilaah la safto iyo qoladii ilaahay halaago aakhirka u dambeeyaan marka waxaan kaga hadlaynaa sinada uu nabi muuse qaaruun ku eedeeyey ilaahayna oo ku qabtay ninka la yiraahdo qaaruun iyo nabi muuse oo markuu ka cararay masar oo aaday reer madyan oo xoolo shubanaya u yimid laba gabdhood oon xoolihii shubanayna u arkay kadibna gabdhihii iyo asaga wada hadleen xoolihii u waraabiyey markaasna nebina maahayn rasuulna ma ahayn gabdhihii ciddoodiina uu tegey oo nebi shucayb la kulmay kadib soo noqday ilaahay marka rasuul iyo ka dhigay nebi kadib muddo badan rasuul iyo nebi ahaa oo mataqaana masar iyo fircoon iyo yuhuuddii wada deganaa iyo qoladii qidbiga oo ka dhashay mataqaana fircoon oo yuhuudda gumaysan jirtay uu intaa rasuul iyo ahaa sanado badan iyo nebi asagoo qodbaynaya markaas la leeyahay waa ninkan saani wey deedna eraygaasa ilaahay ku qabtay ninkii qaaruun ahaa wixii ka raacayna hadalkan ugu dabamarinaynaa qaala tacaala waxaan ka hadlaynaa maantay dadka soomaalida ah oo youtube-ka inta soo gala oo markii hore gaaloobay haddana gaalnimadii aan ku joogsanay rasuulkii caayaya oo youtube-ka inta soo fariista sida gabadha milyuun loo yaqaan laakiin maa milyuun ku caanbaxday oo maraykan joogto rasuulka caayi jirtay muddo hadda bil ka hor ah ujeeddadii u caayaysaana tahay youtube-ka soo fariiso inta rasuulka caydi dad ha kugu soo galeen markay kuu soo galaanna xoogaa shilimaada qolo youtube-kaas kale ha ku siiyeen oo irsaaqad iyo lacag bay rasuulka u caayaysa ayadiiyo wixii la mid a bal marka waxaan ka hadlaynaa irsaaqadda haddii ilaahay dadka uu siiyo bani aadamka uu u badiyo sida qaaruun oo kale iyo haddii uusan shilinba siinin oo ilaa markuu dhashay ilaa intuu ka dhimanaya fakri iska ahaado oo uusan qadiya qurac iyo casho isku xigto welig u helin qofka maalka loo badiyey ilaahay inuu jecel yahay macnaheedu qofka maalka lagu yareeyana macnaheedu ilaahay inuu nacay miya maya maaha maxay tahay marka qaala tacaala bal hadda aayaddan aad u dhegaysta marka waxaan ka soo hadalnay aayadihii hore dhowrka ahaa qaaruun ninka la yiraahdo oo gaalna ahaa hantidiina yiri caqlayaan ku shaqaystay inuu nebi muuse raacana diiday haddana rasuulkii caayay oo yiri waa saani ninkaas maalkiisa furayaashiisa yaa koox rag ah oo xoog weyn aysan qaadi karin waxaad ku hagaajisaa marka mid kale oon weligiisba ilaahay amarkiis aan qadiyo qurac iyo isku xigta casho weligiisba helinba ilaa markuu dhashay ilaa iyo 100 sano uu ka gaaray ama 80 ama 90 intuu ka dhimanay haddaba marka maalka loo badiyo qofka iyo kan lagu yareeyo maxaa ilaahay kala jeedaa qaala tacaala aayadan aad u dhageysta marka waa aayadda saldhigga u ah hadalkeena maanta qaala tacaala وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم
بالشر والخير هذا الكلام مانتي سلقيسو انتانوي ونبلوكم بالشر وحال إذن كنت ربينا شر والخير إيا خير ونبلوكم بالشر والخير وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير لعلكم ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وحان إذن كنت ربينا شر بان إذن كنت ربينا شر بان لقنتي يقورت قفك اللو قلنية إلهي وحو كالتش إذا منعينه اتحان بالله قاضية إلا أدوية بوحال شو كان اتحان قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كين عمل في عن إلا تشربه بأدونك لسكو كان بقبي جدا وحال ربا إن لو أقادو مركا ميد كان قورت اللو قليي مشكلة ده oo sharka lagu fasaxay inuu samro oo ilaahna uu tawagalo una dul qaato adkaysto oo ogaado waxaan ilaahay itixaan xaq u weyn inay tahay wal khayr baa lagu farqay sida qaaruun oo kale maal ba ilaahay gacanta u geliy furayaashiisi aan koox raga oo xoog weyn qaadi karin kuwa masaaracada ciyaaro kale kiiba 200 kiilo ama ka badan yahay culuskiisa baan qaadi karin furayaasha kaliya kaasna waxaa la rabaa inuu xaq ilaahay ka bixiyo maalkan ilaahayna uga xamdino qoyr alxamdulillah ilaahu adaa maalka isiiyay qaala tacaala وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكا حداد يقول شهرسان مركان مال إذن سيوه أما خير إذن سيوه أما وحونا سن إذن سيوه وإذن كردين يا إلهي حداد سقالوا ذن عذاب كيقول مدران وسيدا قارون قد عدوه كلام ونبلوكم بشر آية دهر نقول عليه ونبلوكم بشر والخير فتنة وشربوي شرط يا خيرك وحن لبد متقان لبضبا أن يكون متقان يكون سودايي وحاوي وشرب لا يدن كف النين يو وحلا يدن كو اتحام يا لا يدن كو شربيا إن أتقف والبا اتحانك كل عيين كباسو كي مالك العيت لو قلي سكدي صدقدي حجكي جهادكي نفقدي وحاسب انك بخيو الهنا اوغا مهنقو اسكار ان عليو انو كحد غدبو او اسراف كو سمايو مالك ميد كان فخرغا لغا دغان انو اسنا كو سمرو دول قاتو او الهي انو ايغيو انو لا سocdo آيات كلا قال تعالى وإلى ترجعون لبدي بوصل نقوني أنا حقنا نوصل نقوني سانوي كي أن مال كفر قناي سيد قارون أو كلا يا كي أن فقر كده بقول كسر أو قضية قراء عشاء إسكوه أن إسكوه حتى من عنين أنا القيامة يقول إيمان سانوي مركز كي تحان كنا عيا كي كوباس أبال مرن تإله هنا وحول واتشنية ناروي سيد قارون نار لوجو أبال مريي أيا كي فقير كهانا وولي يسبق أن متقان وحبا أن هلمبر أصلا كنا لوجو أبال مرنا يحدو إلهي معناها أو وسمره قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم آيات كلوي إلهي وحي إرزاقده qofna waan u kordhiyaa oo waa u badiyaa oo mid balaaran baan uga dhigaa waasac baan uga dhigaa midna waa ku yarayaayo waxaan ka dhigaa fakhri
addoommadayda midna waa u waasiciyaa maalka midna waa ku yarayaayo fakhri baan ka dhigaa cirri baan uga dhigaa in allah bikulli shay calim ilaahay wax walba wuu la socdaa kaas uu maalka siiyey oo inuu ku itixaam u siiyana wuu og yahay waxa ka imaan doonana wuu garanaya kan uu maalka ku yaray fakhri ka dhigay inuu asna dul qaato oo samro iyo inuu qaylqayliyo oo samri waayo asna waa ilaahay wuu og yahay oo wuu la socdaa wuu daawanaya qiyaamana wuu ku sugayaa آيات كلا قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت النهر خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا كو عملك في عن إيمانك الله يهلي مركي الدنيا ذا جوجين waxaa ilaahay ku soo dhaweynayaa fooqyaal iyo saradha dheer oo jannada ka mid tajri min taxti al-nahar khalidina fiha wabiyaal malab iyo caano iyo biyo ay dareerahayaan wabi biyo ah wabi caano ah wabi malab ah wabi khamra ayaa hoosteeda dareeray kuwaas lagu soo dhaweynay oo waligood ku waarayaan nicma ajrul aamiliin dad amal falay oo amal fiican amal falay wax lagu abaal mariyana waxa ugu fiican dabaqaas jannada oo hoosiisa intaas webi marayaan kuwa saas yeelay marka waa kuwa oo waxaas ilaahay u ballan qaaday alladina kuwa sabaru horta way dulqaad baa laga helay wa ala rabbihim yatawakkalun ilaahna waa tala saarteen adduunyada korkiisa inta ku nooshahay hadii laga waayo labadaas samir iyo ilaah inaad tala saarato hadii laga waayo adduunyada waa halaagsamaysaa aakharana inaad halaagsan naar aday u badanta sababtu adduunyadan xigmada ugu fiican oo inaad fahamta laga rabo oo nolol barwaaqa oo raaxa iyo qalbi waasac aad ku noolanayso waxa weey labadaas inaad fahamto labadaas laga helo weey inaad samirto oo wix ilaahay ku siiyo haduu hanti badan ku siiyo sida qaaruun aad ku samirto macnaa samirta meeshii ilaahay uu talaga dhigto weey haduu fakhri ka dhigay oo aadan qadiyo quraac iyo casho isku xigto waliga helin inaad samirto oo ilaahay inuu kugu itixaamayo aad ogaato way dul qaadato kadibna ilaahay aad tala saarato hadaad hantiila tahay oo ilaahay uu wixii maal kugu farqo taajir ka dhigay sida qaaruun ilaahay inaad tala saarato inuu maalkaas kuuna badiyo xaqi uu kugu amrana aad ka bixiso oo kugu fidnayn oo sagaalnimo ku jiidin iyo caasinimo hadaad fakhri tahana fakhrigaas ilaahay inuu soo kugu ibtalaynin oo aadan saas fakhrigii aad ilaahay ku caasiyoobin ilaahay waa inacay waa idiray markuu idiray anna waa caabudi maayo waa ka tagay aadan oranin ilaahay marwalba ugu shukr qado itixaankeeno aad ku dul qaadato aadna tala saarato inuu adduunkana fakhrigaas uu ka saaro ama asagaas ilaahay uma taqaan qalbigaaga ku dajiyo oo waasac kaaga dhiga aakharna janno ku geeyo haddii samir iyo tawakkul laga waayo ilaa tala saarato nolosha adduunku waxay kugu noqonaysaa ciriiri mid waxay kugu noqonaysaa sida kuwa dabaq iska soo tuuro oo kale kuwa isdilo oo kale kuwa sunta cabo oo kale kuwa tareemada isku dhigo oo kale holan waagan joogi jiray magaalada Rotterdam waxa misaajka noogu imaan jiray sabtidii axadda sheekh maxamuud shiblaan oo akhrin jiray kitaabada nin Soomaali ah oo lugna go'aantay lugna dhaawacantahay oo dabada ku siqaya waan weydiiyay muxuu ahaa baa waxa leeyahay asagoo fiican buu intuu khamro iyo xashiish ka dhargo tareen isku dhigay tareen buu isku dhigaali noloshii baa ku adkaatay ilaa xashiish khamro ka dhargay tareen baa marka maray intuu meesha tareenka fariistay asagoo cabsan ayuu lugna ka gooyay lugna waa ka dhaawacay misaajku noogu yimid marka asagoo raaligiisa uu waliba naga soo hormari jiray dadka kuwa naga lagu qabo ka soo hormari jiray saaxiigu keena marka waka waxa weey noloshiiba cirri ku noqonaysa tareen buu isku dhigahaya sababtu maxay tahay samirkii iyo tawakkulkii iyo wadada ilaahay u jeexay oo ilaahay inuu caabudo ah oo adduunyada loo keeno ka leexday markaas uu iska daba galay khashiish iyo khamri iyo darro iska daba galay iyo kuwan hadda YouTube-ka lacag raadinaysa maxamed caayaan dana lacag inay helaan raadinaya qadarka oo lacag maxamed caaysa lacag baad ku raadinaysaa cayd waka macna samir baan jirin ilaahay la tala saartana ayadana labaas way ka tagaan hadday samir leeyihiin iyo hadday ilaahay inay tala saartaan ay aaminsan yihiin inta YouTube soo fariistaan oo rasuulkoodii caayaan oo rasuulkii ummadan loo soo diray ilaa qiyaamo ay caayaan oo ilaahooga caayaan oo quraankii caayaan oo saxaabadii caayaan oo xaaska nabiga caayaan oo diinta islaamka caayaan haddana saasaad ku helaysaa lacag kumay fakareen laakiin samirna male tawakkulna male labadaas marka qofka ima qalaya iyo kan warkay gaari doono waa fahanka cilmiga qarsoon
oo ilaahay quraanka uu ku sheegay weeye oo nolosha qofka inuu fahmo la rabo way hadduu fahmi waayana adduunyada uu halaagsamayo alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun qala ta'ala ilaahay muxuu ku xijiyay u fiirso وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم وآيات هذا يديسو آخرنا بانكر وضحي لو آيات وكأي من دابة للك صعوتو كتبت للك كركيدو كتبت فربضنا وكأي من دابة رزقها الله يرزقها وإياكم للك صعوتو للك كتكوبيسة انت للك صعوتو للك كركيسة كتكوبيسة وحيوان إلهي أبورت مخلوقات لا تحمل رزقها قار waxaa ku jir risqay maanta cun lahaayeen aan haysanba meel u jirna garanin yarzuquha ilaah ba marka taas irsaaqadooda hayo irsaaqa wa iyaakum adinkan bin aadan kan ilaah ba idin irsaaqa way xayawaankaas ilaahay isbuu tala saartay qadadiisii iyo quraacdiisii cashadiisii meel u koog yaamale ilaahi abuurtay oo awalba adduunka keenay oo samaystay ayuu ku kalsoon yahay asagaasa inuu irsaaqadiisii siin doono ayuu aaminsan yahay markaasuu bin aadan ka fiicnaado inta ilaahay ku kalsoonoo way rasuulkooda caayo ama hesha 25 bi ama 50 bi buu gaaloobaya diintiba uga baxayaa xayawaankaasuna quraanjaba ka bilow ilaahay maroodiyi gaarsi ilaahayga abuurtay ayay tala saartay markaas ilaahay qadiyo quraac iyo cashiye ka badan basiinaya ila ilaahoodu way ku kalsoon yihiin waka marka bin aadanki wuxuu ka sii qiimo liitay quraanjo iyo dhuracaso iyo wax ka sii liito ilma qabatay oo nool oo ilaahay irsaaqadooda u hayo inta waxaan uga tageynaa irsaaqada loo gaaloobayo iyo irsaaqadu haday badan tahay day cirir tahayba ujeedadu in ilaahay uu ku itixaamayo kan loo badiyay iyo kan kalaba oo lagu yareeyo oo cirir loo dhigay labadaba waxaan tageynaa isbar dhigeynaa marka qaaruun oo ilaahna diiday rasuulkii loo dirana diiday haddana markii u dambeysay caayay maalkii asagu uu ku kufriyay oo yiri ilaahay ba aniga maalkan maxaan ku yiraahdaa ilaahay ima siinin ana ragnimada ku shaqaystay bal dadka intaan asaga ka bixin waxaan xoogaa sii wadaynaa dadka hadda bini aadanka jooga waxay aad indhaha ugu taagaan dadka taajiriinta oo hantiilayaasha sida hadda kan gaalka oo yuhuudka oo Bill Gates la dhahayo gabar laga sheegay Chinese in uu lacag badan tahay nin la Ruushka uu lacag badan yahay dadka noocaas ayaa maxaan ku yiraahdaa aad loo fiiriya dadku ay indhahooda la weyn yihiin bal hadda qaaruun kuwii la noolaana markay qaaruun arkay maxay yiraahdaan aayadan dhageysta qaala ta'ala فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذي تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فخرج على قومي في زينته وكان قارون صباحي قوم كيسي بكو صباحي أساقو حرقون استجبينها يوحرق سعونيا فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا
kuwii noloshan adduunka iyo dhaldhalaalkeeda la weyneyd oo qatarta waxay yidhaahdeen yaabka yaabkiise waxa hantiya oo la siiyey qaaruun maana la siiyo wax weyn weeye arrintaas qofkii la siiyaay wa qaala aladiina uutul cilma weylakum thawaabullahi khayru liman aamana wa camila saalixa walaa yulaqaaha ila saabiruun waa samirkan maanta o dhan ka hadlaynay wey dadkii cilmi la siiyo mu'miniintaha oo waxaan dhaldhalaalka u haysto qaaruun aan shuqul ku lahayn nebi muuse raacay oo rumeeyey oo yuhuudda ahaa waxay yidhaahdeen yaabka yaabkiis weeye waxa ilaahay aakharo uu ku abaalmarinaya wixii rumeeya ayaa ka xoog badan waxa la siiyey oo ka fiican qaaruun laakiin dadka samra oo samir laga helo unbaa arrintaas fahmayo macnaheeda garan kara wey fiiri marka qaaruunkii si loo galay fiiri marka فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين إلهي وحير أساقي إيو مالكي سيب دول كان لقويي موسى هلين كوح أقرقارتو أني يعلسه ودولك إنا لقوي كدافع له أساقي نميس كدافعه مركا دولك لقويي أساقي دولك إيو متقانا مالكي سيو اسمياشي سيو قريه سيبا موسى نقونين وي kuwii markay arkeen ninkan iyo maalkiisii dhulka in lala jaray shalana kulaha ninkan waxa la siiyey ma nala siiyo waa wax weyn ayagiyo hadlaya dhageysan marka qaala tacaala oo ilaahay ka sheekeynay وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وحير أهدين ويابه إلهي مالك قفكو ربنا واسية قفكو ربنا وكو يرايا وحيوا بريستان كوي شلي مالك ولوينا قارون يقو دهايا إلهي مالك عدو ربنا واسية عدو ربنا وكو يرايا لولا أمن الله علينا لخسف بنا حدان إلهينا من نيسان أو صنوهم من نيسان إنه نبت قليو سيدا قارون مدلوك نلقوين لها ويكأنه لا يفلح الكافرون قالنا من اللي بانتو حدا يقول عداته مركي دولك لا شرع نينكي شلي أي كوهيين مالكي سوك لما نلسية مركي إلهي وقبطي أو دولكي لقوي أي وحي أغادن إني قطر قارك أفولين وقال لما تقول عن سيدا قارون دولك نلقوين لها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إلهي وحير تاس آخر الله ميدا آخر لي هذا تاس آخر إلهي وحير وحان سيني dadka aan doonin adduunyada intay ku nool yihiin 60 sano 70 sano si nabiga sallallahu alayhi wasallam umadayda 60 sano ugu badan cumrigeedu yiri adduunyada inay kor noqdaan aan doonin oo meel sare adduunyada ka gaaraan inay dhulka fasaadiyaan aan doonin la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ciribta dambana waxa iskala kuwa ilaah ka dhoorsado ilaah ka baqa oo taqiyaasha hadaa doonaysa marka ilaahay inuu adduunkan raalli ka noqdo aakharna jannadiisa uu ku geeyo waxaad xooga saaraysaa tilka daarul aakhiratu naj'alu alladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada midda dambaad u shaqaysanaysa aakharo tan dhalaalkeedii adduunkan aad bari ka tagayso oo god laga gelinayo oo hadaad boqor ahayd hadaad madaxweyne ahayd hadaad taajir ahayd hadaad sheekh ahayd hadaad professor ahayd hadaad ugaas ahayd hadaad qof aqli badan ahayd hadii uu carruur badan lahayd hadaad xoog weyn hadaad qurux wixii ilaahay kugu irsaaqayba waxa ku dambeynaysa meedka hal aaso qabriga inta laga soo tago adoo kafan kaliya kugu duuban tahay halkaas marka wixii adduunka ku soo shaqaysatay haday fiicnaayeen ugu tagaysa haday xumaayeen ugu tagaysa qofka xigmad iyo marka aqliga u saaxiibka midaas dambe laga soo noqonin oo weynanka badan janna qofku aadayo ama naar aadayo taasa in xoog la saaro oo adduunkan dhaldhalagsi magaciisa in kor la noqdo la iska daayo taasa xigmadu ku jirta ayadana waxaad ku gaari kartaa ku gurdi kartaa ilaahay inaad ka baqdo waka dadka ilaahay u nabciyay waa dadka adduunyadan aan doonayn inay kor noqdaan oo madax noqdaan oo ay carada faata dhugleeyaan laakiin waxay cilmi iyo aqli iyo waqti lahaayeen waqtooda isugu geeyay aakhara say ku badbaadi lahaayeen ilaahay caradiisa iyo cadaabkiisa ka badbaadi lahaayeen raxmadiisa iyo raalli noqoshadiisa jannat firdaws u gal lahaayeen
dadkaas ahlu xigma marka halkaas marka inaad dadkaas raacda laga raba oo wadadaas sax ad qabsato leenkaas ila naftu ka baxdo saasayna qoladii qaaruun ku sigtay awal hore ma taqaana maalkiisa u indha taagay markay arkeen waa kuwa quusteen waa soo noqdeen inta waxaan kaga tagnaa irsaaqadii Soomaalidu u gaalowdo rasuulka u caayeen iyo gabadhii maamuliyun aad u taqaaneen oo kontonka bil 25 bil rasuulkeeda u caayisay waxaan tagaynaa nabi Suleymaan oo ilaahay boqortooyo maal isugu faraqay iyo asagii oo ilaahay uga mahadnaqay meeshii qaaruun uu ilaahay u yiri anu maalka ana iska leh xoogay iyo aqlaan ku shaqaysta قال تعالى قال الملك قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عرفت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وكان النبي سليمان وحيري قبل بالخيسة رجع أسجى ماشي اللي تشوي أو مدحديسها وحلقوا آمين جري أيوه وحكور قبل بالخيسة أو هدهد يجور كاني أو يمن قاشة أو كرسي وين ويري ويلاده هاي بقرطوية وين ويلاده هاي قرحنا عابدنا أيدي يدتكذ oo warbixintii hudhud uu keenay way gabar baan soo arku yiri kursi weyn bay leedahay waana gal qoraxda ay dadkeedu caawdaan wuxuu yiri gabadhaas uu sheegay hudhud waxaan u baahanay kursiga sheegayso inay iitima in kursiga la ii keena intay soo socoto oo warqad buu ugu dhiibay hudhud wuxuu yiri iimaad adinku hoggaansan hadii kale ciidamada ku soo fariqin oo adin iska celin kartay adduunka idinku dhigin gabadhu marka way soo socotaa buu yiri waxaan rabaa in laga soo hormariyo kursigeeda la ii soo qaado halkan la ii keeno قال عرفيت marka عرفيت baa hadlay waa jiniga mid kamid oo xoog weyn wuxuu yiri anigu waxaan ku keeni karaa intaada kursiga ka kicin subaxdii buu soo fariistaa markuu subax tukado 6 saac buu kursiga ka kacaa 6 saac gudahood baan kugu keeni kursiga la sheegayo waana soo qaadi karaa aaminna waana hayo kursiga meel kale ka geynmay adan ku keeni wuxuu markaa u qabay hudhudku inuu baalka عرفيتku inuu nin balaaya yahay oo qatara axad kala hadlay marka oo culumadu marna ku sheegan inuu nabi Suleymaan yahay marna ay dhaan waa nin xirtiisi kamidaho wuxuu akhriyay ma taqaana mustajabu dacwo ahayo wuxuu akhriyay asmaa'ul husna eraya ilaahay inta lagu xuso ilaahay wax walba ku sameeyo ayuu akhriyay markaas kursiga ilbirqsi ilaahay ku keen kaasa hadlo marka wuxuu yiri meesha ninkan uu leeyahay cirfidkan jiniga anu waxaan keenin 6 saac anu wuxuu yiri ilbirqsan ku keenin قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وكا وعير أنو البرقسان كوكي النبي سليمان مركو كان البرقسي نبي سليمان وحيري أرنتان إيادا كرسي البرقسي إلهي وكو كان وجدد أنيقا إلهي وحو ربا نبي سليمان إنو اتحامو waxaan boqortooy iyo maal iyo ma taqaan jinni uu ii shaqeynayo oo dabayshu ii shaqeynayso oo bini'aadamku ii shaqeynayaan oo wax kasto anigu amra ma taqaan amarkay ku shaqeynayaan ilaahay ii sakhiray ana laygu itixaamaya inaan ilaahay uga mahadnaqo iyo inaan gaaloobo nabi Suleymaan oo hada rasuul ba baqayo ugu had oo ilaahay itixaankiisa ka baqay inuu ku sidbado wuxuu yiri qofkii ilaahay u shukriyana waa mid laga rabe naftiisu u shukriyo ilaahay asaw ka abaal marinaya maalkiina uu sii korinaya iyo boqortooyadii wixii naartii caradiisina waa ka ilaalinaya laakiin kii ilaahay u shukrin waaya oo ilaahay ku gaalooba ilaahay qanuunkii oo baahna asaga umba adduunka cara ilaahay ku dhacaysa aakhirana la cadaabaya gabadhii balkhiisaan u tagayna ayadana marka waa kana hudhudkii oo marka balkhiisa u tagay oo ka soo waramaya qaala tacaala gabadha saan sheegnay gaal bay ahayd boqortooyana waa haysatay marka bal waxaan fiirinaynaa hudhudku markuu soo arkay ciidan qaala tacaala إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدوا فهم لا يهتدون وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو له العرش العظيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وعيري waxaan soo arkay gabar wax walba la siiyey oo kursi weyn leh waxayna u sujuudiyeen qoraxda ayay qoomkeedu shaydaan baan arinta u qurxiyay oo ka wadadii xaqayd ka awday mana hanuunsanayn gabadhii noocaas ahayd oo saas ahayd markii warqadii loo geeyay قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ إني أوتي إلي كتاب قالت يا أيها الملأ إني أوتي إلي كتاب قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ إني أوتي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون قالت إني أرسلت إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون
waxay tiri kitaab baan ka helay wanaagsan nebi sulaymaan waxaana ku qoran bismillaahi raxmaani raxiim ha iska kibrinina aniga ii imaada odayaashii wax la xukumay waxay ku tiri waxaan u baahanahay inaad arrintan ka tala bixisaan oo wixii la samayn lahaa nebi sulaymaan wixii loogu joogi lahaa keena odayaashii waa faaneen cirka isgeeyeen waxay dhaheen niman qatar oo dagaalyahan aan nahay reer bani makhsuum oo kala nahay ciday galaan waa galan tahay waxay ku tiri tala ma ogidine anaa idinka haya caqligii waa idin gooye hadday soo weeraraan dadka noocaas oo kale boqortooyooyinka ah dad soo weeraraan inta madaxdu ah bay duleeyaan laakiin shacabka waxba kuma darsadaan adinkan iyo aniga weeye waxa loo jeega xiraya haddii aan amarka diidno marka waxaan sameynayaa hadiyad baan u dirahayaa hadiyadda hadday qaataan waa la diri karna naf male waa dad iska gaajaysan oo fakhri ah hadday hadiyadda diidaan looma dhowaan karo iskama celin karo waa inaan markaa isdhiibnay noqonaysaa hadiyaddii markii nebi sulaymaan loo geeyey nebi sulaymaan wuxuu yidhi maanaad maanta maal ii kordhinaysaan waxa ilaahay aniga ii siiyey ayaa ka khayroon waxa adinka leedin siiyey aniga rasuul baan ahay nebi baan ahay jinni baa ii shaqeeya maxaan kula dabaylaha ii shaqeeya bini aadamka dhan baa ii shaqeeya shimbiraha iyo waxaan la hadlaya xayawaanka aabbahay buuraha iyo mataqaanaa iyo shimbiraha baa markuu subxaanallah ayaguna subxaanallah ilahay ku amar inay dhahaan oo ka daba dhahaan nebi daa'uud ninkaasna aabbahay weeye maxaad sheegaysaan marka wuxuu ku yidhi imaada haddaad imaan weydaan taa idinku dhiga waa ka sheekaynaysaan huudkiiba mar labaad loo soo diray gabadhii marka way iskeentay way aragtay ninkan nin la iska celin kara mar hadduu hadiyaddii soo diiday hadiyaddiina waa soo diiday hadal adagna waa lagula hadlo oo iyo markaan kama dambaysto dad imaan weydaan tii in ka raacda waa arki doontaa intaa markay uu isdaba dhigay ayay soo socdeen marka ay socodkii soo bilaabeen buu wuxuu leeyay marka kursigii yaa kursigii ii keeno ka soo qaada kursigiina waa la keenay horeen usoo marnay aadihii ninkii keenay oo ilbiriqs ku keenay saasuu marka nebi sulaymaanna ilaahay ugu mahadiyey gabadhiina waa tana ayadoo muslimtay marka qaala tacaala فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتنا العلم من قبلها وكنا مسلمين وسدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين هل كاسكم مسلم تقوري بالخيساك قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بتر هل كاسك بالخيسو قال لماذا يبقرتو يدي يحكم كيدي بكتورتي إسلام كيسو راعدي معانا هنا النبي سليمان أو إلهي وقام هنقي بقرتو يدي يمالك يوحي إلهي كفرقي يا رسول نبي إلهي نأكردي iyo gabadhii oo muslimtay gaasha ahayd oo ilaahay ma taqaano uu naarna ka badiyay gabar muuminada ka dhigay waxaan tagaynaa qisada qaybtii ugu dambeysay oo hadalkeena maantay macnaha nuxurkiisu uu ahaa iyo saldhigiisu marka laga reebo aayadii ilaahay maalka iyo qofka u badiyo qof ku yareeyo oo aan soo marin laga reebo nebi muuse ayuu wuxuu ku sheegay inuu zaani yahay ninkii qaaruun ahaa waxaan fiirinaynaa marka nebi muuse isagoo rasuul oo nebi buu ku sheegayaa qaaruun inuu zaani yahay nebi muuse oo rasuul ahayn oo qof caadi yahay markuu ku dilay masar uu ku dilay ninkii reer qibdi oo fircoon isku qolada ahaayeen asagoo u helinaya mid yuhuuda oo lagu shaqaysanayay ilaan qoladan waxaa raran jirtay yuhuuda waxaa raran jirtay qoladan qidbiga oo fircoon baa iyo gumaysan jiray nebi muusena haddee fircoon baa soo koriyey markuu ninkii dilay waa asagii reer madyan usoo cararay asagoo u heelinahaya midkii lagu shaqaysanayay oo maskiinka iyo yuhuudka ahaa asagoo caawinaya oo isku qabiilka ahaayeen markuu u habar wacday oo yiri ii heeli kadib asagoo magaalada ku dhudhuumanahaya nin fircoon ilma adeer ahaayeen oo qasrigii jooga wuxuu maqlay fircoon iyo raggii oo nebi muuse in la dilo weeye sababtu qof nin qidbiyuhu dila asagoo nin yuhuuda u heelinahayo oo ciddiisa ninkii baa soo cararo nebi muuse meeshaas ka carar waa lagu dilahaya in lagu dila la go'aamiye nebi muuse waa cararay wuxuu iska aaday reer madyan buu aaday nebi muuse reer madyan markuu aaday nebi mah rasuulna ma waa qof caadi uga wad ilaahayna wuu uga dawadkay ninka inuu dilo marhin wuu feeray laakiin feerkii buu dhintay sababtoo nebi muuse nin xoog weyn oo dheer oo cado qurux badan buu laba lafood dabeecad ahaan nin xaruur iyo dabeecad kulul buu ahaa oo qalad iyo waxa hadduu arka aan macnaha
feerka inuu soo rogta maahane iyo kunfuugiisa aan joogayn buu ahaa calayhi salaam waa firdhada marka waa cararay reer madyan buu afka saaray ilaahna wuxuu ka baryay kuwaan inuu ka baadiyo meeshuu aadayana ilaahay inuu mataqaan meel khayr la uga dhigo oo wado fiican ilaahay ku hagaajiyo waa kana marka nebi muuse oo reer madyan u yimid ballada dhegeyso qaala tacaala ولما ورد ماء مدين وجد علي أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال نجوت قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قصدي halkaasay ku dhamaatay nebi muuse markuu ceelkii yimid reer madyan ka shubanayeen wuxuu arkay dadkii oo ceelkii xoolahoodii waraabsanaya laba haween ah laba dumar ah laba gabdhood oo ari iska horanayo arigu markuu biyaha ku carraba ka soo celinaya arigiina shuban maayaan wuu la yaabay wuu u yimid wuxuu yidhi xaalkiinu muxuu yahay dadkii xoolihii bay shubanayaan adinku waa iska taagantihiin arigii markuu biyihii ku carraba ka soo celinaysaan waxay dhaheen anagu dadkan xoolala jirka ah ilaa ma ay ceelka ka fulaan oo ka tagaan ma shubano ariga eragaas macnihiisu muxuu yahay macnihiisu waxa weeye gabdhaha nebi shucayb baa dhalay waa gabdho nebi soo tababaray oo akhlaaq iyo edab la wey marka ceelka baadiyaha la shubahayo waxa weeye ceelashu hadda biyahan oo kale iskama hayn uma taqaanaa oo tuubooyinka waa ceel oo inta dhulka laga qoday makaab baha la yidhaha makaab waxa weeye waa geed xoog weyn oo lasoo qoray labada gees laga soo gooyey ceelka afkiisaa la saaraysaan ceelka loogu dhicin marka dadku shubaya marka lug bay saarayaan wadaantana ma taqaanaa waa u ridahayaan markii buuxsantana waa soo bixinayaan gabadhu marka ceelka markay shubaysa inay kubkeeda qaawiso weeye marka haddii kale wadaan lama bixin karo inay tafaxaydato wey oo ilaa iyo jilbaha ay laalaabato meeshiin rag baa jooga gabdhihiina nebi baa dhalay gabdha nebi dhalay meeshaan kub iyo boodyo qaawan oo 100 nin daawanaysa waa ceebta adduunka wey waxay sameeyaan biyaha iskaga soo arooraan maanta oo dhan bay ceelka joogaan markii lagu kala tago qorraxdu dhici rabto oo dadkii ay xooli shubtaan oo labadoodii kaliya arigay soo haro bay labadoodu intay tafaxaytaan bay arigooda shubtaan markaas ilaa wax jooga ma leh saasaa dhaqankoodu ahaa nebi muuse xoolihiibu waa ninkaas weyn oo xoogga weyn oo cadow quruxda badan hal mar buu kala tuuray gebigiisiiba xoolihiiba waa uu u waraabiyey isla markiiba gurigii tagaan odagii waa yaabay nebi shucayb duqi waa yeelkaa oo wuxuu yidhi maanta xoolihii maxay tahay waa soo waraabisay ilbiriqs baa ku timaadeen waxaa dheh nin xoog weyn oonan garanaynin oon meeshaana degaankaan ahayn oo cusub oo qariib ah ayaa xoolihii noo shubay oo aawe meeshii buu iska fadhiyay geed cidlo iska fadhiya awal markaan meesha markuu noo yimid geed buu iska fariistay qofna ma yaqaan annagu xoolihii noo shubay geed iska fariistay labadii gabdhood tii weyneed buu soo diray u yar buu ninkii aabbahay baa kuu yeeri tiri inuu ku siiyo shaqadii ariga aad noo waraabisay inuu ujradeedii ku siiyo abaalguudkeedii buu kugu yeeraya nakeen waa lay soo raacay ilaa gabadha marka ciddii taqaanay gabadhii baa hormartay gabadhii markay hormartay meeshii dee waa baadiye hawd baa la lugeynaya gabadhii marka xoogaa bay lugaha markay geed iyo ku soo hagaantay xoogay lugihii kubkii wax yar anqogu korkiisa iyo meelahaasay xoogaa maradii kor u qasiyaan geedka oo geyn nebi muuse markii ishiis ku dhacday gabadhan marada kubka ka qaadayso oo anqowqoya meelahaas gabadhu kubkoo dhan mu qaawinayso waxay in yarba oo ay maradeeda ka ilaashanaysay wuxuu yidhi dhegeysa gabar halligaho aniga macnaha kubkaaga qaawinaan daawada ma rabe gadaal baad iga soo maraysaa waad i hogaaminaysaa waxaad leedahay xagga u leexo ciddii xaggii jirtaa geedkaas ka leexo midig u leexo bidix u leexo hore usoo ay dhahaysaa saasaa ciddii ku tegayna anugu tafaxaydashadaad iyo koobkaaga cad inaan daawado ma rabe saasay ku soo waday gurigiibay sidii ku keentay ayadoo ka dambaysa hogaaminaysa
markii la soo galo la iswaraystay oo odagii asay iswaraysteen oo uu ka warramay inuu ka soo cararay fircoon raggiisa oo nin dilay oo soo fakaday naftiisa la soo cararay ayuu wuxuu ku yiri marka maanta waad naba gashay aniga Shucayb baad ii timid kuwaasna Ilaahay baa kana jeeyay raali iska halka marka arintii maraysa gabadhii soo gashay weyneed awal soo kaxayso waqti aaba ninkan waa aamin weeye xoogna waa leeyahay mad xoolaha noo shaqeey noo shaqeeyay madno Chris marka inuu xoog weyn yahay arigii buu soo saasi ku ogaatay ilbirqsu ku soo aaminka waxay ku ogaatay inuu ninkan uu nin tuuga ahayn waa meeshan u socono way oo fircoon rabna inaan hadalkiisa qaarun aan hadalkiisa aan ku beenino aan rabno way waxay tir ninkan aamin way sababtu wuxuu aamin u yahay gabar meel hawl cidla maraysa nin weyn oo xoog weyn oo cad oo ma taqaana dhalinyaro ah oo laba lafood ah oo haddana inuu aan qawyadeeda arka xataa aan ogolayn ee gadaal iga marnahaya anigu inaan cawrada daawada mar rabe gabar yahay saasu inuu marka aamin yahay oo aniga iyo gabadha kale iyo adiga iyo xoolaha uu ninkan tuug ahayn oo nin edab daran uusan ahayn oo nin saqajaan uusan ahayn saasi ku ogaatay marka dhanna waa xoog weeyahay dhinacna waa nin aamin oo akhlaaq leh oo nin fiican aab marka ninkan yuusan dhaaf waa kana marka nabi Shucayb oo ninkii la gorgortamay nabi Muuse calayhi salaam wuxuu yiri inni uriidu an unkixaka ihdamnataya haatayni ala an ta'jurani 8 xijaj sidee sana inaad ii shaqaysarna gabdhahaygan midoon aan ku siiyaniyo oo kugu meheriyo aduna meherkaaga iyo arooskaaga iyo waxaago dhan iyo yaradkaaga iyo waxa la wixii gabar laga bixin jiray waa inaad sidee sana ii shaqaysaa oo arag ii raacda haddaad 2 sana iigu dartana fa in atmamta 10 fa min cindik wa adiga xagaaga go'aankaas adaa iska ladan laakiin waxa iska jeclaan lahaa inaad 10 iiga dhigto oo 2 sana iigu darto nabi Muuse arintii qaatay wuxuu yiri satajudni insha Allah min as-sabirin min as-salihin dadka uu wanaagsan inaa ka mid noqdo ayaan sidaasan ma taqaana ayaa ii go'aana anigana qaala dhalika bayni wa baynaka ayyama al-ajalayn qadaytu fala udwana calay wallahu ala man naqul wakiil bun halkiisu goynay Muuse haddaan 10 kaaga dhiga ani ii taalaabay go'aankana askar haddaan 8 kugu joojiyeen ana ii taala laakiin culimadu waxay dhahan 10 kiiba uu u shaqeeyay markuu 10 kii sano gaaraan reerkiisa uu soo watay Masar buu ku soo noqday asagoo dhex maraya Duuro Siina halkaas uu soo degay marka nabinimadii rasuulnimadii lagu siiyay نبي موسى عليه السلام قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار لأهله آنس من جانب طور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وكا موسى إلهي تابر يوي مركو عدي 10 kii u dhameeyay soo guuray ayaa Ilaahay qabtay markuu maray Duuro Siina cidiibu wuxuu ku yiri meeshaas iftuun ka baxay waa buurti Duuro Siina ayaan soo fiirin inaan dadka helo ama aan qori daba nooga soo qaadee xilli dhaxan baan joognaay si aan u shidano dabka oo dhaxanta oo kacnay bal sii fadhiya meeshaan markuu yimid Ilaah baa la hadlay waxa kula hadlay waa Ilaah baa la yiri u shaadana marka dhulka iska dhig u shii mas bay noqotay nabi Muuse waa carray lafiisu la baxsaday إلى ماشي أول قلبي هذا وشي أباسية مصبي نقطي وإنه مركا كبرها كعرة وعلوير يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وعلي أوشا قابل هانا بقن ونبت قليات هاي واحد يبقى قاري مهيان وحاوي مركا نيكي نوع عاسها أو أصغو إسكاب ولا قبضنا قدال كمريي أو لها إيهوغامي أنو كوبكا ماركي بو قارون وحوليا نيكا وازاني نبي موسى يهود بو قدبيي
zinadu aad ugala hadlay iyo inay xaaraam tahay inay dembi weyn tahay ilaahayna uu ogolay ninkii qaaruun ahaa gabar buu lacag soo siiyey oo yuhuuda wuxuuna ku yidhi haddaad erayga dhahda hadhow lacag kalaan ku siin oo fara badan waxaad dhahdaa ninkan wuxuuna leeyahay sinaan ina kala hadlayaaye markuu qodbadda dhammeeyo waxaad tidhaahdaa aniga nebi muuse iga sinaystay muxuuba sheegaya ninkaan rasuulkii nebiga sheeganaya oo annaga sinada naga waaninaya asagaaba aniga iga sinaystay dheh gabar fiican baa tahay lacagtan oo ku kordhinaya hadhow intaan kusiiy ka badan baan ku siinaya qaaruun waa istaagay gabadhii waa hadli weyday qodbaddii baa taabatay wadnaha u taabatay nebi muuse wuxuu yidhi nebi muuse u dhegaysaniyo hadda annaga qoladan reer bani israiil waxaad naga wacdinaysaa oo qaaruun iyo nebi muuse waa ilma habreed waana ilmo adeer oo asagu fircoon iyo hamaan iyo reer qidmiga edabdarru u raacay oo nimankaa saaxiib la noqdo qaaruun laakiin asagu waa nin yuhuuda wey waa reer bani israiil nebi muuse ilmo adeerna yihiin ilma habreedna yihiin wuxuu yidhi waxaadna leedahay rasuul baan nebi baan nebi muuse haddeertaana gabar baa fadhida meeshan adigu aad ka sinaysatay maxaad noo sheegaysaa marka waxaa akhrinaysa khuraafaad weynena dhaf nebi muuse hadda hore inkugu sheegay inuu nin xaruuri ahaa xoog weynana oo nin naxaan ahayn xagga geesinimada nebi muuse waa xanaaqa wuxuu yidhi gabar yahay dhegayso ilaahay ku abuurtay ka baq anigu rasuul baa nebi ilaahay baana iska jir arrintaa ku fuudaan arrintan gabar yahay ku fuudaan iska ilaali maanaa kaa sinaystay waxay tiri maya aniga rasuulkaas ilaahay nebiga ilaahay igamana sinays imaan arag qaaruun baa lacag isiiya haddana haddaad erayga dhahda lacag kalaan ku siin buu yidhi nebi muuse ilaah buu ku jeestaa marka ilaah buu la hadlay wuu yidhi ilaahayow waa u jeedaa sharaftaydii iyo rasuulnimadeedii iyo nebinimadeedii qaaruun baa ku ciyaaray wax ii haray maanta male ilaahay markaa maxaan sameeyaa buu yidhi dhulka la goobuy asagii iyo wixiisoo dhanba qaaruun dhulkaa lala gooyey asagii iyo hantidiisii iyo guryihiisii iyo furayaashiisii iyo wixiisiiba culummadu waxay yidhahdaan qiyaamuhu imaanaya ilaa hadda waa sii socdaa ilaa maalinkaas uu qodbaddii nebi muuse yuhuud u qodbeynayay oo uu nebi muuse yidhi waa zaani ilaa saacaddan wuu sii socdaa asagii wixiisiiba qiyaamaha markii laysku yimaado baa ilaahay keenaya soo socda markaasi dig soo istaagaya asagii reerkiisi haddaba marka nebi muuse oo saas ahaa fircoonkiina waxba kama damey laftigiisina waa la halaagay qaala tacaala وقال موسى ربي وقال موسى ربي وقال موسى وقال موسى يا وقال موسى وقال موسى يا وقال موسى وقال موسى يا ربي وقال موسى وقال موسى يا ربي وقال موسى وقال موسى وقال موسى رب إنك آتيت فرعون وملأه زينا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
fircoon baa lagu soo jeesta markaan nabi muuse habaaray ilaa cadaabka ay arkaan ilaahay iimaanka aysan rumayn buu yahay macnaha ilaahu cadaab wey iimaan ba ha u qorin weye gebigoodaba eber ka dhig qaala qad ujiiba dacwatukuma adiyo nebi haaruun ilaahay ducadii waa idinka aqbalay wey fircoon iyo qoomkiisu waxba rumayn maayaan gaalnimay ku dhimanayaan waa la halaagaya wajaawazna bibani israa'iil albaxr markii la yiri mataqaanaa badda ku dhufa usha nebi muuse calayhi salaam oo baddii laba u kala baxday ay soo galeen baa la halaagay qoladii fircoon nebi muusena waa la badbaadiyey biyihii markay dalqada u gaareen ayuu toobad keenay qaala aamantu lahu أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين markaad horay u gaalowday haddoo naftii laga qabanayo oo biyihii ay dhunta ku galeen iyo afka baad saacadan baad leedahay waa muslimahaya falyawma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka aya ilaahay yiri jirkaaga adduunyadu baaqi ku ahaanaya si ummadaha ka dambeeya oo nebi muuse qoomka ka dambeeya oo nebi ciise nebi maxamed ay ku arkaan oy ugu waana qaataan oo banaanka ay uga maran eedabdaradii eedabrada lagu haysta maxay tahay fircoon qaala tacaala وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين أرجع صلوا هيستا قوم كيسي أضياشيسي ماشي اللي حكموا حكيري إله أنا جاهين مياتشرة مجرو إله أنا جاهين موجي أنا إله الذين أو فرعون كان مجروي تاسا إلهي كوهيستا مرك أفرت السنة كدينا محيري إله أنا جاهين متقانا إله وين وأنا جاهين مجروي أنا ربكم الأعلى إلهي وين وأنا وين أفرت السنة كدينا لواس أريب على وهايستا مرك أو أفرت السنة وده حيسي وكان والداد راعيه مركي لداد راعيه يري waa muslim hayana bihi ba afka loo galiyay waxa lagu yiri jirkaagana adduunyo oo adam masar buu yaalaaba la sheegay aan waliga masar ma tagin meel ba jira lacag laga qaado dadka la tuso inkastoo hadda waa la diiday oo in la xaday ka baqayaan aan maqlayay fircoon qolofkiisa hadda iyo meedkiisa baqtigiisa halkaas u yaala qaaruun qoladii la halaagay buu asna iyo raacay ninkii la oran jiray Haaman saasa marka qaaruun iyo fircoon iyo haamaan ba looga adkaaday oo nebi muuse nebi suleymaan iyo balqiisa uga adkaadeen gabadhii muslintay ninkii marka asagoo doob ah oo aan rasuul ahayn gabadha gadaal iga mar lahaa buu wuxuu leeyahay qaaruun waa saani asagoo rasuul iyo nebi ah haddaba idabdarrada iyo mataqaana aflagaadada oo weliba xagga goosha oo rasuusha iyo nebiyada loo geysto ilaahay agtiisa wax yar kama ah قال تعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وان كأرجودنا المجرمين تيوي وان أوجرجارني ذلك المؤمنين تا مرك إلهي رسوشي سو أوجرجارها آيات قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين رسوشي المؤمنين تبع إلهي وقرقاريا حدوا مركا عدي اسكو أفلقاديس الرسول أم النبي خاصة سنئي سريرتي سي حاسكي سكا هذاشا سيداس إلهي قارون قلق أولا قويي مركو نبي موسى كجري ساني إلى قيامها أسيس عضو مركي قيامة إيمانيا سير هيركي سيبا taasi tukuxun baa idinku dhacaysa qolooyinka ay ka mid tahay gabadha milyuun la dhaho milyuun loo yaqaano oo YouTube-ka lacagta u soo farintay nabi maxamed calayda sallallahu alayhi wasallam iyo xaasaskiisii iyo Aisha
sida qaaruun ku dhacday baa kuu dambaysa adigana adduunyada ilaahay inuu dhulka kula gooyo ama qadaadka lagu sii jeediyo sidii mataqaan qoladii luud qoomkiisii wejiga la sii jeediyey oo wejiga inta lagu sii jeediyo wejigii iyo mataqaan jaagada isku mid laga dhigo iyo cinqaabo ka xun ayaad halis u tahay adiga wixii kula mid oo rasuulka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam haddaba rasuulka iyo saxaabada iyo abubakar iyo caaisha iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo saxaabadoo dhan iyo xaaska nebiga bannaanka ha laga maro adinka gaaloobahayo soomaaliyeed intiina gaaloobayso diinta ka baxayso soomaalida uu ridoobay faraha kala baxa haddii kale waa sidaas qaaruun baa ilaahay dhulka idinla goynaya aakhira laydinla sugi maayo sida qaaruun ilaahay u galaya ka xun baa ilaahay adduunka idinkugu cinqaabaha ilaahayna wax yaqaana mal isagaa garanaya waxaa suurtagala tii qaaruun la cinqaabay ka xun in laydin cinqaabo waxaa inoo haray qolada inta rasuulka cayda haddana waa waalanahay dhahaya baa ka haray 4 qodob aan ballan qaaday waa inoo iyo axadda dambe haddii ilaahay cimri nagu gaarsiiyo iyo qodobkaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin qaala tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها آدي بأمة سنتين لما شعبك الصوماليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته